بسم الله الرحمن الرحيم. امتحانكني وامتحانك حسابتا paper 1 paper 1 2021 marka waa imtixaankii ugu dambeeyay 2022 paper 1 kiisii marka waan isku daynaa insha Allah taala wixii Ilaahay naga karsiiyo dabcan imtixaanka marka aad ka shaqeynayso system kan un bad u gelaysaa marka ugu horeysa waxa loogu talagalay magacaaga inaad halka ku qorto iskuulka aad ka soo baxday iyo roll numberkaaga halka ay total score ay ku qoran tahay waxba lagu ma qoro waa inay cadaan ahaataa in laga kansal gareeyo waxba kuma hadii aad halka wax ku qorto meelaha sare ee warqada ama meel aan halka ahayna inaad wax ku qorto lagaaga ma ogola hal xarafna Allah ka yeelay imtixaanka 20 kamid ah waa multiple choice questions 140 marks 10 kalena waa structured questions oo waa 60 marks totalku marka waa 10 marks okay halkan waxa lagu yiri use this page for rough work page kan raf ahaan baad u isticmaalaysaa oo waa page iska cad oo loogu talagalay ardaygu inuu iskaga shaqeysto maadaama oo aan calculator-ka loo ogolayn okay حقي سؤالها إنه رادعينا سؤاله page 3 بكل ka bilaabmayaan qaybta multiple choices ka hadaynu ku horeyno su'aasha ugu horeysa waxa halkan inoo yaala waa circle the correct answer goobo gali jawaabta saxda ah each question carries 2 marks su'aal waliba waa 2 mark su'aasha koobaad waxa lagu yiri convert 4 divided by 3 by to degrees 4 divided by 3 by degree u bedelaysaa marka qaacidada isticmaalaysaa 4 divided by 3 by waxaad ku dhufanaysaa marka degree loo bedelayo 180 divided by baa lagu dhufanayaa marka labada bayna way isku sanayaan 183 hadaad isku qaybiso waa 60 60na hadaad 4 ku dhufato waa 240 degree marka maxaad goobabsaa siida halkan cidi waxba kaama weydiinayso saa doontaa dad ugu adeegato jawaabta la saxaya waa tan haday 100% waxa halkan ku qoran adiga sax ku tahay cidi kuma saxayso halkan baa la saxaya halka waa inaad goobada saxda aad ku qorato su'aasha labaad waxa lagu yiri the marks obtained by a class of 26 students in a maths test are shown below what is the mode halkan sawirkan aad arkayso waxa lagu yiri waa markiskii ay keeneen 26 arday oo imtixaan xisaab oo fadhiistay dabeedna muxuu noqonayaa mode kale inaga doonaya marka graafkaas markaad u eegto sida graafkaasi inooga muuqata waxa labadiisa cirif kamid ah waxa uu inoo yahay grade cirifkaasi waa grade ayaa noogu qoran halkana frequency baa inoogu qoran laymanka madow waxay inoo muujinayaan baariskaasi ardayda scorekii ay keeneen marka mode-ka maxaa sideen ogaan karnaa mode-ku waxa laga eegaa xagga frequency-ga waa ka ugu frequency-ga badan leh marka laymankaaga line-ka ugu dheeri xagga frequency-ga markaad eegto waa kan marka frequency-ga uu ku beegan yahay weyn mode-kiisu ka ugu mode-ka badan leh marka ka ugu frequency-ga badan leh waa 8 mode-ku macnaha waa number-ka ugu soo noqnoqodka badan leh waa mode marka waa siida isagana waxaad goobabsataa that means siidan markaad leedahay hadaad siidan goobabto waxaad dooratay a weeyaan iyaduna waa tan oo waa ku weerar bay kamid tahay d dad goobabsa macnaheedu waxaad dooratay siidi baad dooratay siida dooranaysa wata marka waa halkan laakiin laga goobabaya way su'aasha ku xigta saddexaad derivative of sin x baa lagu yiri sin x ka macnaha markaad dy dx saarto maxay ku soo baxaysaa waa cos x weeye sin x ku marka eeda ayaa dooranaysa eedana way su'aasha afraad evaluate baa lagu yiri combination 6 4 marka tan oo kale markaad ka shaqeynayso waa combination marka waxaad oranaysaa waa 6 factorial divided by 6 minus 4 factorial times 4 factorial marka maxay noola mid tahay 6 waa 6 factorial divided by 6 minus 4 factorial na waa 2 factorial times 4 factorial
marka xaggan hore 6 factorial aynu wadno waxaynu odhan karnaa waa 6 times 5 times 4 factorial divided by 2 factorial waa 2 times 1 times hoosta waxaa ku yaala 4 factorial markaa si aad 4 factorial iyo 4 factorial isugu jarto 6 markaad ku dhufato waa 10 halkana waa 2 markaa jawaabta waxay noo soo baxaysaa 5 waan qaldanay 6 ku dhufo waa 30 baan ujeedaa waa 30 laba haddii loo qaybiyo waa 15 markaa jawaabta waxay noo soo baxaysaa 15 ayay noo soo baxaysaa waayahay su-aasha shanaad what is the conjugate of -3i plus 4 tan conjugatekeeda markaan helino waxay ku yar fiican tahay haddaynu dhahno matalan 4 -3i sidaasoo kale conjugatekeedu wuxuu noqonayaa 4 plus 3i buu noqonayaa yani 3i dii iisoo horreysay baan xagga dambe mariyey real numberku inuu iisoo horeeyaa yara fiican imaginary numberkan uu inoo yara dambeeyo marka 4 minus 3i halka kayd waxay noqonaysaa 4 plus 3i bay noqonaysaa marka 4 plus 3i ayaad iyadana dooranaysaa oo ah c-da 4 plus 3i inta kale midna conjugate ma noqonayo waayo su-aasha lixaad waxaa la yidhi if the equation of the curve y equal 4x minus x cubic divided by 3 haddii equationka curve uu intaa inoo leeyahay calculate the gradient of the curve at x equal 3 gradientkii curveka laynaga rabaa markay x leegtahay 3 marka equationka curveka hadduu yahay y equal 4x minus x cubic divided by 3 gradientka markaad helayso waxaad odhanaysaa dy dx waxay ku leegtahay derivativekaad saaraysaa marka derivative waxay noqonaysaa 24 minus 3x square divided by 3 marka labadan iskoosanayaan waxaa kusoo hadhaya 4 minus x square haddaba waxaad ka raadisaa gradientka marka x ay leegtahay 3 gradientku waa dy dx laftirkeeda la soco dy dx marka waxay leegtahay 4 minus x markay 3 ku leegtahay 3 baad ku bedelinaysaa square marka waa 4 minus 9 waxay noo soo hadhaya maxay minus 5 jawaabta marka waxaad dooranaysaa eeda waa su-aashii lixaad iyadna la soco marka waxaynu gelinaa question 7 su-aasha toddobaad waxay odhanaysaa an ordinary die is thrown once laadhuu caadi ayaa hal mar la tuuray what's the probability of getting an even number waa maxay probabilityga aynu ku helino tiro dhabana dabcan waxaanu garanaa laadhuudu waxay leedahay 6 dhinac waxaa ku qoran 1 dhinacna 2 dhinacna 3 dhinacna 4 dhinacna 5 dhinacna 6 marka 6daa dhinac waxa even number uun 1 iyo 2 iyo 3 dhinac uun baa 6deeda dhinac even ka ah marka waa 3 3 dhinac baa 6dii dhinac even number ka noqonaya marka 3 marka 6 loo qaybiyo waa 1/2 bay noqonaysaa 1/2 marka iyadana waxaan dooranaynaa b-da way taasina waa su-aashii toddobaad inaynan su-aalaha inaan hal mar wada muujinayo laakiin programka aan ku duubay ayaan ii suuragelinaynin su-aasha sideedaad waxaa lagu yidhi evaluate the limit 4x square minus 1 divided by 5x square as x approaches to infinity way tan oo kale marka la evaluate garaynayo ay square-ana leedahay waxaa la yidhahdaa 4x square powerka ugu weyn ayaa dhinac walba loo qaybiyaa oo iminka matalan powerka ugu weyn waa x square marka waxaad odhanaysaa xagga 4x square baad u qaybin xaggana x square xaggana tiro kasta x square baad u qaybinaysaa marka waxa tan markaan x square u qaybino 4 baa soo hadhaya minus tan haddii x square loo qaybiyo 1 divided by x square bay noqonaysaa divided by tan haddii x square loo qaybiyo 5 baa soo hadhaya limitka marka x-taadu ay aad ugu dhawaato infinity 1 divided by x square waxay noqotay 0 marka intan iyadu 0 bay noqonaysaa maxaa soo hadhay 4 divided by 5 4 divided by 5 marka waxaynu qaadanaa 4 divided by 5 oo inoo ah maxay d-da su-aasha sagaalaad if 2 sin square x minus sin x equals 0 solve
x for the range x is between 0 and 180 way waxaa laynaga rabaa equation kan inaan solve garayno oo aan qiimaha x helo marka waxaanu haysanaa waa 2 sin square x minus sin x equal 0 wax isku mid ah waad factors garaynaysaa labada dhanba sin baad ka saaraysaa sin x baad ka saaraysaa xaggan waxa kuugu soo hadhaya markaa 2 sin x minus 1 equal 0 marka horta sin x baa 0 ku leeg baad oranaysaa marka hore sin x waxay ku leegtay 0 arrintaas waxay kuu muujinaysaa x inay ku tahay sin inverse 0 sinku halka uu 0 ka yahay waa 0 way angle-kii koowaad kaasuu noqday tan labaad intan dhexdaad soo qaadanaysaa oo ah 2 sin x minus 1 equal 0 iyadana waxaad oranaysaa 2 sin x waxay leegtahay 1 dhinac walba markaa 2 u qaybiso sin x waa 1 over 2 taasi waxay noo muujinaysaa sin inverse 1 over 2 sinku halka uu half-ka ka yahay waa sinku halka uu half-ka ka yahay ama xagasha sinkeedu half-ina siiya waa 30 degree iyo ileen sinku waxa weeye waa inuu u dhaxaysa waa inuu x waa inay ka weynaataa baa layidhi x-taadu waa inay u dhaxaysaa maxay 0 iyo 180 waa in intaa u dhaxaysaa baa layidhi marka xagashii koowaad hadday noqotay 30 degree xagasha labaadna waxay noqonaysaa 180 minus 30 oo ah 150 degrees marka waxay noqonaysaa labada xaglood ee kala ah 30 degree iyo 150 degree tan hore ee 0ga marka waa la isaga tegayaa tanna qiimo yeelatay tanan qaadanaa 30 degree iyo 150 degree maadaama dee angle-keenu u dhaxeeyo 0 ilaa iyo 180 jawaabta waxaan qaadanaa b-da waa 30 degree iyo 150 degree sababtoo sinku labada angle ba labada quadrant ba positive buu ka yahay quadrant 1 iyo quadrant 2 positive buu ka yahay